وحلقة أفراد امتحانها كل هبين يا هبين هدي أي تايمر كيكو واد أنا كنت صوب وغنيسو فضلا سبسكرايب كتابه لايك تنصار كم برارك ندارو سيكوسو قارن مقالة ذي عصبي أنا جنا أي ديري قريني ونغطها يمي كان داو شوعان ninkii sheekada waday wuxuu yidhi markii labadeedii walaal ay soo noqdeen iyaga oo faramaran waxaan ku idhi waan idiin sheegay inuu safarku dhibaatooyin leeyahay ee maxaad u safarteen markaasay igu yidhaaheen waa qadar alle walaal maantana waxba ma haysano hadalna waxba noo tari maayo markaas ayaan waday waxa aan geeyey dukaankaygii anigoo dhar iyo cuntaba siiyey kadibna waxaan ku idhi dhegaysta waynu isla shaqaysanaynaa oo ganacsigan ayaynu sii wadanaynaa sanadkiina mar ayaa la xisaabinayaa wixii faa'iido ah aynu helnana waynu kala qaybsanaynaa markaas ayay iga ogolaadeen muddo sanad ah markaanu shaqaysanaynay oo aanu faa'iido fiican helnay ayay igu yidhaahdeen aynu safarno waxaa laga yaabaa inaynu soo faa'iidno balse waan ka diiday waxaa sidaas la ahaadaba iyaguna maalin kasta ay igu celceliyaan aynu safarno ayaa markay muddo ka soo wareegtay aan ka ogolaaday hadalkooda waxaan xisaabiyey hantidii dukaanka taallay waxayna noqotay 6,000 oo diinaar markaas ayaan ku idhi lacagta waan kala qaybinayaa 3,000 waynu qaadanaynaa saddexda soo hadhayna meel ayaynu ku aasaynaa si haddii hadhow aynu u soo khasaarno aynu taa ugu baxsanno way iga ogolaadeen labadan wiil ee ila dhashay jiniyahow waxa ay ahaayeen kuwo aad u xaasidiina aadna way ii dhibi jireen laakiin anigu waan isaga dul qaadan jiray maadaama ay walaaladay ahaayeen kadibna waanu safarnay annaga oo muddo bil ah safarkaa ku jirnay ayaanu markii dambe tagnay magaalo aad u camiran markaas ayaanu badeecaddii aanu wadanay aanu suuqa u iibgeynay waxaanu halkii diinaar ka faa'iidnay 10 diinaar kadibna waxa aan go'aansanay inaanu safar kala galno maalinkii aan safarka geli lahayn maalintii ka horreysay aniga oo keliya xeebta maraya ayaan xeebta ku arkay gabadh dhalinyaro ah oo aad u qurux badan markaasay igu tiri intay ii soo dhowaatay walaalow waxaan kaa codsanayaa inaad ii guursato oo aad beledkaaga ii wadato waxaan kuu hibeeyey naftayda ee macruufkaa ii samee waxaa laga yaabaa inaan abaalkaaga maalin uun kuu gudee markaan hadalkeeda maqlay aad ayaan ula yaabin qalbigayguna wuu jilcay anigoo ka naxay gabadhan keligeed meesha cidlada ah joogtay iyo duruufta ay ku jirtay markaas ayaan waday waxaanan u soo iibiyey dhar aad u qurux badan anigoo sidoo kalena markabkii safarka meel qurux badan uga habeeyey waanan guursaday kadibna safarkii ayaan ugalnay gabadha waxay ahayd gabadh aad u furfuran oo dabeecad wanaagsan markaas ayaan aad u sii jeclaaday oo qalbigayga ay xanaatay heer waxaan gaadhay aan habeen iyo maalinba iyada uun ag fadhiyo waxaanan ka mashquulay walaalahay markaas ayay aad iiga masayreen iyagoo xaasidnimo ii qaaday waxayna iga xaasidayeen hantida ilaahay ii barakeeyey iyo gabadhan aadka u quruxda badan ee ilaahay ii siiyey markaas ayaa shaydaan nacladaha ku dhacdee xumaato u qurxiyey iyaga oo go'aansaday inay idilaan kadibna hantideeda oo dhan keligood la wareegaan habeenkii dambe inta ii yimaadeen anigoo hurda ayay inta ay soo qaadeen badda igu tuureen markay xaaskaygii sanqadhii ku baraarugtay aad ayay u xanaaqday iyadoo isku beddeshay cifriid aad u weyn waxayna isku soo tuurtay biyihii badda oo ay iga soo saartay kadibna waxa ay geysay jasiirad cidlo ah cabbaar ayaan iga maqnay markaas ayay ii soo laabatay marka ii timi ayaan weydiiyey maxaad ahayd yaa tahay se siday wax u dhaceen markaas ayay igu tidhi anigu waxaan ahay xaaskaaga halkana aniga ayaa ku keenay oo badda kaa soo saaray waxaana kugu tuuray walaalada idan alle ayaanad ku badbaadin waxaad se ogaataa inaan anigu ahay gabadh jin ah markii ugu horraysay ee aan ku arkay ayaanan ku jeclaaday waxaana kugu jeclaaday iimaankaaga iyo daacadnimadaada anigu waxaan ahay gabadh mu'minad ah oo ilaah iyo rasuulkiisaba rumaysan laakiin hadda aad ayaan u xanaaqsanahay xanaaqayguna ma degayo anigoon ciqaabin oo aan dilin kuwii badda kugu tuuray markaan hadalkeeda maqlay markii hore waan uga mahad celiyey inay nafteeda badbaadisay laakiin waxaan ka codsaday inaanay walaaladii dilin waxaanan u sheegay inaanan ka samri karin wax kastana haygu sameeyaane waxaan u sheegay inay walaaladayu yihiin laakiin way iga diiday waxayna igu tidhi isla caawa ayaan iyaga iyo maraakiibtooda isku soo duminaya markaas ayaan ku idhi qofka mu'minka ahi haddii la xumeeyo xumaanta xumaan kale kuma gudo ee wanaag ayuu ku beddelaa qofkii xumaanta sameeyeyna kollay naftiisa ayuu halaag uun u soo jiiday oo qof kale waxba kama qaadi karo sidii aan u dejinayay ayay iga ogolaatay inaysan dilin laakiinse waxay igu tidhi waa lagama maarmaan inaan ciqaabo oo xataa haddii aanan dilin ciqaab la'aan ma ahaan doonaan markii aan magaaladii ku noqday oo aan dukaankaygii furtay ayaa waxaan arkay labadan ay oo meesha jooga markaan weydiiyeyna waxay igu tidhi waa walaaladaa tanina waa ciqaabtooda oo walaashay oo sixirka taqaana ayaa qaabkan u sixirtay waxayna sidan ahaan doonaan muddo 10 sano ah cifriid yahow waxaa dhacday inay soo dhammaatay muddadii 10 sano ahayd aniga oo u sii socda xaaskayga walaasheed taasoo walaaladii sixirtay si ay sixirka uga furto ayaa waxaan arkay ninkan meesha fadhiya iyo odaygan diyaarada wata
markaas ayay ii sheegeen siday wax u dhaceen anna halkan ayaan fadhiistay si aan u ogaado dhammaadka sheekadan ee jin yahow haddii aad ka hesho sheekadiina dhex martay aniga iyo labadan ey ee walaaladii ah ninkan dhiiggiisa 3 meeloodoo meel ii hibee markaas ayuu jinnigii la hadlay labadii ey oo ku yidhi marubaa ninkani waxa uu sheegayo madaxa ayay ruxeen iyagoo oo leh haahey markaas ayuu jinnigii yidhi wallaahi waa sheeko la yaab leh aadna way ii cajabisay ninkan dhiiggiisana 3 meeloodoo meel ayaan ku hibeeyey markaas ayaa waxaa hadlay odaygii saddexaad ee baqasha watay wuxuuna yidhi jin yahow haddii aan anna kaaga sheekeeyo sheekadiina dhex martay aniga iyo baqashan oo ay ku cajab geliso ma ii hibeynaysaa inta ka dhiman ninkan dhiiggiisa markaas ayuu jinnigii yidhi haa haddii ay cajabiso kolkaas ayuu odaygii baqasha watay yidhi jin yahow boqorkii jinniyadow baqashan aad u jeedaa waa xaaskaygii anigu waxaan ahaa nin ganacsada ah oo safar badan waxaanan lahaa hanti badan maalintii dambe ayaan baxay oo safar aaday waxaanan maqnaa muddo sannad ah kadibna waan soo laabtay markaan gurigaygii imi waxaan u imi naagteedii oo sariirta la saaran nin addoon ii ahaa markay aragtay ayay inta hadal aanan fahmaynin ay ku hadashay ayay biyo meesha yaala igu saydhisay waxayna igu tidhi ka bax muuqan aad tahay oo ey noqo isla markiiba waxaan isu beddelay oo yeeshay muuqaal ey kadib gurigii ayay iga soo caydhisay waan iska soo baxay anigoo isku haya inaan riyoonayo iyana waxaan dhacayaa run tahay sidii aan u soo socday waxaan u imi nin kawaanla ah markuu ii arkay ninkii kawaanlaha ahaa wuxuu ii siiyey xoogaa hilib ah iyo lafo waxa uuna ii sii watay gurigiisii markii aan guriga galay ayaa waxay aragtay gabadh uu kawaanluhu dhalay waxaanay ahayd gabadh sixirka wax ka taqaana waxay dareentay inaan sixranahay iyada oo ku tiri aabbaheed aabbow waxaan ina hortaagani ma aha ey waa nin miskiin ah oo naagtiisu ay sixirtay waxaanan awoodaa inaan sidiisii caadiga ahayd ku soo celiyo oo aan sixirka ka furo markaas ayuu kawaanlihii ku yidhi gabadhiisii gabadhaydii waa kuu ducaynayaaye ninkan sixirka ka fur markaas ayay weel yar biyo ku shubtay oo wax ku akhriday kadibna igu firdhisay waxaana ku soo noqday suuraddii uu ilaahay ii abuuray anigoo isla markiiba gabadhii ka codsaday inay iga caawiso sidaan uga aarsan lahaa naagteedii ay sixirtay waxa ayna isiisay weel biyo ku jiraan oo ay wax ku soo akhriday iyadoo ay igu tidhi marka ugu horraysay aad naagtaada aragto biyahan ku saydhi waxaanad ku tiraahdaa intaad xayawaan niyeysato xayawaan kaa noqo waan soo baxay oo inta aan biyihii xaaskayga ku saydhay ayaan ku idhi baqal isku beddel sidaas ayayna baqal ku noqotay waana midaan kusoo fiirinaysa iminka markaas ayuu cifriidkii baqashii fiiriyey wuxuuna ku yidhi ma sax baa waxa uu ninkani sheegayo madaxa ayay ruxday iyada oo leh haahey markaas ayuu inta uu jinnigii gelgelay seeftiisii yidhi waan kuu hibeeyey ninkan dhiiggiisii intii ka dhinnayd markay shakadu halkaa marayso ayay shahrazaad dareentay in subaxii la gaadhay wayna aamustay iyada oo joojisay hadalkii u bannaanaa walaashaydii ka yarayd ee dunyazaad ayaa tidhi maxaa ka macan sheekadaada kana fiican walaal markaas ayay shahrazaad tidhi tan waxba ma ahan haddii loo barbar dhigo sheekada aan habeen dambe idinka sheekayn doono waa haddii uu boqorku ii oggolaado inaan noolaado markaas ayuu boqor shahriyaad yidhi ilaahay baan ku dhaartay inaanan dili doonin tan ilaa ay sheekada ka dhammaynayso waayo waa sheeko aad u cajiiba sidaas ayayna maalintaas gabadhii dilka kaga badbaadday habeenkii saddexaad ayaa la gaadhay markii habeenkii la gaadhay ayay dunizaad tidhi abbaayo noo dhammaystir sheekadii xalay iyo siday wax ku dhammaadeen markaas ayay shahrazaad tidhi boqorow taajirkii markii naftiisii badbaaday ayuu wuxuu u mahad celiyey odayaashii iyada oo meeshiina lagu kala dareeray waxaase sheekada ka yaab badan sheekadii ninka kalluumaysadaha ahaa markaas ayuu boqorku yidhi oo maxay ahayd sheekada ninka kalluumaystaha ahi halkaas ay shahrazaad ka bilowday sheekada ninkii kalluumaystaha ahaa shahrazaad waxa ay tidhi boqorkaygiiyow waxaa jira nin kalluumaysta ahaa aadna u da'weynaa waxa uuna lahaa xaas iyo 2 gabdhood magaaladana kumuu noolayn qof ka saboolsan ninkan kalluumaysatada ah waxaa caado u ahayd inuu shabaqa maalin kasta 4 jeer badda ku tuuro wax 4 jeer ka badanna weligii kumuu tuurin maalintii dambe ayuu soo baxay wuxuuna yimi baddii iyadoo xilli duhura ay tahay markaas ayuu shabaqii badda ku tuuray ilaa shabaqii gunta badda gaadhay markaas ayuu yidhi baleeg waxa uu shabaq kuu soo qabtay markuu soo jeeday ayuu dareemay inuu culays yahay markaas ayuu yidhi qabo laakiin aad ayuu u cuslaa wuuna awoodi waayey inuu soo qabto maadaama uu oday waayeela ahaa sidaas darteed ayuu laashkii uu saarnaa xeebta geeyey isaguna shabaqii jiiday siduu u soo jiidayay markuu soo saaray ayuu arkay in waxaan culus oo shabaqiisu qabtay maantoo dhan jiristiisa uu ku rafaadaya inuu yahay dameer baktiyey markuu odayga arkay aad ayuu u murugooday isaga oo yidhi laa xawla walaa quwata illaa billaah helista risqu waa mid cajiiba kadibna mar kale ayuu baddii ku noqday oo shabaqiisii tuuray isaga oo yidhi bismillaah cabbaar markuu joogay ayaa haddana uu dareemay in shabaqii wax ku soo dhaceen wuuna soo qabtay laakiin waxay noqdeen jawaan ay ka buuxaan dhooba iyo dhagxaan markuu odayga arkay ayuu mar kale haddana murugooday wuxuuna meeshii ku tiriyey gabay uu ku muujinayo calaacalkiisa markaas ayuu mar saddexaad baddii ku laabtay oo haddana shabaqiisii badda ku tuuray markaasuu wax yar kadib dareemay inuu culays yahay markuu dareemay inuu culays yahay ayuu soo qabtay oo soo jiiday balse nasiib xumo waxa uu soo qabtay qashin iyo quraarado
odaygii miskiinka ahaa aad ayuu usii murugooday mar afraad ayuuna badda ku laabtay laakiin markan gacmaha ayuu kor u taagay isagoo alla baryay wuxuuna yidhi ilaahayow waad og tahay inaan 4 jeer ka badan shabaqa badda aanan ku tuurin 3 mar ayaan ku tuuray waxaana ii hadhay hal mar oo keliya ee ilaahay wax khayr qaba iigu soo rid wuxuuna yidhi bismillaah isagoo shabaqii badda ku tuuray kadib markii uu cabaar sugayay ayaa waxaa dhacday in shabaqii cuslaaday weliba culays aad u daran ilaa uu ku sigtay laashkii yaraayo odaygu saarnaaba inuu la gadoomo kadibna odayga wixii tabar iyo awood ilaahay siiyey iyo dadaal markuu isu geeyey ayuu dabadda soo dhigay wixii cuslaa balse waxa uu noqday sanduuq maar ka samaysan afkana ka xiran iyada oo dushana uu ku astaysan yahay faraatigii nabi suleymaan calayhi salaam wuxuu is yidhi maanta calafkaaga ayaa sida noqday sanduuqan qaadoo suuqa maarta iyo macdanta lagu iibiyo gee waa intaasoo quudkii maanta aad ka soo heshaaye balse markuu qaadi is yidhi ayuu qaadi waayey culays dartiis wuxuu go'aansaday inuu furo si uu u ogaado waxaan culayska badan ee sanduuqa ku jira kadib mindi uu watay inta uu la soo baxay ayuu sanduuqii furay balse waxa uu noqday sanduuq eber ah oo madhan ninkii isaga oo yaaban ayaa waxaa sanduuqii ka soo baxay xoogaa qiiq ah kaasoo marba marka ka sii dambaysay sii xoogaysanayay ilaa uu qiiqii daruuraha gaadhay odaygii miskiinka ahaa aad ayuu ula yaabay kadib qiiqii ayaa isqabsaday wuxuuna isu bedelay cifriit aad u weyn oo madaxiisu daruuraha maraayo cagihiisuna ay dhulka yaallaan weynaan wuxuu ka qabo ilaahay baa weyne wuxuu lahaa cifriitkaasi madax sidii qubada u wareegsan iyo gacmo aad u qara waaweyn luga aad moodid inay yihiin tarbiyada dhufayska ah af aad u dheer aadna u dhuuban iyo ilka aad dhagaxaan waaweyn moodid isaga oo badda ka soo baxay haddana cifriitkaas waxaa ka muuqday boodh iyo basaas markuu odaygii kalluumaysatada ahaa arkay cifriitkan weyn ayuu cabsi la gariiray iyadoo ilkihii xitaa iskaraaceen candhuuftiina uu liqi kari waayey cifriitkii markuu arkay odaygii kalluumaysatada ahaa ayuu yidhi laa ilaaha ila allah sulaymaanun nebiyullah kadibna wuxuu sii raaciyey nebi allow ha idilin mar kale hadalkaaga ma khilaafi doonee markaas ayuu odaygii yidhi ma sulaymaan baad hadda nebigii ilaahayow leedahay iyada oo nebi sulaymaan geeriyooday 1800 oo sannadood ka hor niyow maxaa tahay qisadaaduna maxay tahay maxaana halkan ku geliyey ayuu odaygii weydiiyey cifriitkii markuu uu maqlay hadalkii odayga ayuu ku yidhi hadday sidaas tahay bushaarayso oday yahow odaygii oo farxadi gashay ayaa yidhi maxaan ku bushaaraystaa cifriit yahow oo aad iigu bushaaraynaysaa cifriitkii ayaa yidhi geeridaada ku bushaarayslo isla saacaddan aan joogno ayaan ku dili doonaa weliba waxaan ku dilayaa dilistii ugu xumayd markaas ayuu odayga yidhi oo maxaan ku mutaysa inaad sidaas oo dhan la ii dilo wallahi adigaa u xaqlay in lagu dilo haddii cid la dilaayo waar maxaad igu dilaysaa anigoo halkan aad ku dhibaataysnayd kaa soo saaray abaalkaygu ma sidaas u noqday markaas ayuu cifriitkii yidhi warkaa ka baxo dhimashada noocee ah ayaad doonaysaa odaygii ayaa ku yidhi waxaan ku weydiinayaa muxuu yahay dembigaygu maxaa kaa galabsay ee aad sidoo dhan iigu dilaysaa markaas ayuu cifriitkii yidhi haddaba anigaa kuu sheegaya dhegayso odaygii oo cabsanaya ayaa markaa yidhi soo gabagabay hadalka naftayda loo soo maraysaayo cifriitkii ayaa markaas hadalkii bilaabay waxa uuna yidhi waxaad ogtaa oday yahow inaan anigu ka mid ahaa jinnigii gadooday waxaanan diiday amaradii nebiga ilaahay ee sulaymaan binu daawuud maalinkii dambe ayuu ii soo diray wasiirkiisii la odhan jiray aasif binu barkhiya si qasab ahna ayuu wasiirkii ugu waday wuxuuna ii geeyey nebi sulaymaan waxaa la ii hor istaajiyey nebiyullaahi sulaymaan hortiisa markuu ii arkay nebi sulaymaan wuu iga acuudubilaystay wuxuuna ii soo bandhigay inaan ilaahay rumeeyo iyo inaan hadalkiisa adeeco waanu diiday markaas ayuu dalbaday in sanduuqan loo keeno wuuna igu xidhay isaga oo dusha igaga khatimay faraantigiisii magaca alle ee weyne haddii alla lagu baryo uu ajiibo ayuuna ku qoray wuxuuna amar ku siiyey jinnigii adeecsanaa inay igu tuuraan gunta badda wayna igu tuureen markaan badda ku dhex jiray muddo 100 sanno ah ayaan ku qayliyey qof kasta oo iga soo saara meeshan inaan hodan ka dhigi doono inta noloshiisa ka hadhay 100 sanno ayaa dhammaaday iyadoo aan qofna meesha iga soo saarin markaas ayaan haddana ku qayliyey qof kasta oo iga fura inaan u furi doono kaydka dhulka oo dhan 100 sanno ayaa ka soo wareegtay haddana qof iga furay maan arkin kadib markay ka soo wareegtay 400 oo sannadood ayaan ku qayliyey qof kasta oo iga fura waxaan u samayn doonaa wax kasta oo iga codsado mar kale haddana qof iga furan waan waayey markaas ayaan xanaaqay xanaaq aad u daran waxaanan idhi qof kasta oo iga fura isla saacaddu iga furo ayaan dilayaa aniga oo doronsiinaya sidaan u dili lahaa markaasna adigaa iga furay ee niyeyso sidaan kuu dili lahaa markuu odaygii kalluumaysatada ahaa maqlay hadalkii cifriitka ayuu yidhi waa cajiib wallaahi haddii qofkii aad sugaysay inaad disho ee meesha kaa furi lahaaba aniga noqday mar kale ayuu odaygii haddana ku yidhi isagoo baryaya cifriitkii iska kii cafi allaha ku cafiyey jinnigii waxa uu yidhi waa qasab inaan ku dilo si aan ballantayda u oofiye waxaad rabtid intaanad dhiman ka hor uun iisii sheeg si aan kugu xaqiijiyo markaas ayuu odaygii xoogaa fakeray kadibna waxa uu yidhi magaca ilaahay ee weyn ayaan kugu dhaariyey adigoo intaan leeg sideed ku gashay sanduuqan aadka u yar cifriitkii markuu maqlay magacii alle ee weynaa ayuu gariiray markaas ayuu yidhi ma waxaad rumaysan la'dahay inaan sanduuqan geli karo markaas ayuu odaygii yidhi macquul maba aha
waxaa buu shaki iiga jira in sida aad sheegaysa sanduuqan aad ka soo baxday. Markaas ayuu jinnigu yidhi, haddaba aniga ku tusaya arag. markay sheekadu halkaa maraysay ayay Shahrazad dareentay in subaxii la gaadhay, wayna aamustay iyada oo joojisay hadalkii u bannaanaa. aniguna sidoo kale waan ka aamusaya hadalkii ii bannaanaa, waayo xaqadeena halkaasaan kusoo koobaya. intaynu xaqadan xaqad la mid ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa nabaday.